gobolka Gedo degmada beled xaawo aad garoon uga baahan tahay waxa way xuduudan haysanaa gobolada kol oo gada beled xaawo ka dhisma qurxan oo xuduudna ka haysato saakine wala dhagax dhigayaa tadaba bir gudaheedna insha Allah biilna karim waxaan jecelnahay inaan ka duulno oo muqdisho ilaa iyo kun beled xaawo ay noqoto عبيد دمال وادمات عبيد مجرتو magaalada beled xaawo عبيد waa ka dhamaatay haddana beled xaawo dhaxtaagana garoonkan dhaxtaagana degmada beled xaawo waa degmada kaliya ee gobolka Gedo laba xaduud leh degmada beled xaawo waa degmada kaliya oo inta badan degmooyinka gobolka Gedo waa degmada ugu faaweyn hadii haleed magaca iyo sidoo kale degmahan degmada beled xaawo waxa ognahay dadka ku nool iyo dadka degmooyinka ku nool inay ka population badan yihiin degmada beled xaawo degmada beled xaawo waa degmada kaliya ee faaweyn oo inta badan ay noqotay degmada gobolka Gedo ugu dhaqaalaha badan hadaba intaas degmada beled xaawo ay ku saleysan tahay macquul ma tahay in aysan maanta aysan lahayn garoon diyaaradeed aad waa wax nasiib darro aad waa wax nasiib darro imise gadoomiye ayaa soo martay degmada beled xaawo imise caada qaatayaal ayaa soo maray degmada beled xaawo imise ayaa fadlan lacag ku shuba soo martay degmada beled xaawo oo gadoomiye ah billahi calaykum hadaba gobolka Gedo gaar ahaan degmada beled xaawo waxa laga hirgeliyay ama hawsheeda ay socotaa in laga bilaabo garoon diyaaradeed ay yeelato degmada beled xaawo hadaba degmada beled xaawo waa degmada laba xaduud leh Ethiopia iyo Kenya la leh xaduud degmada beled xaawo waa degmo inta badan istiraatiiji ah oo waxyaalo fara badan oo inta badan taariikhda ay xusto ay ku aasaasan yihiin hadaba bulshadaas degmada beled xaawo waxa ay dhaxda u dhuuqsadeen koodi maamulka koodi shacabka maamadii khudaarta gadaysay aabihii asaga baqaarka kadayay intaas oo bulsho saqiir kabiir hadii ururka dhalinyarada haleed hadii ururka hooyinka haleed hadii ganacsatada haleed hadii ururka gaadiidleyda haleed intaas oo dhan dhaxda waxay u dhuuqsadeen maanta in ay yeeshaan garoon diyaaradeed inta badan waxa ognahay degmo kale oo faceed ah oo wali ayada ay ka population badan tahay in ay u aadi jireen in ay halkaas ay diyaarad ay ka raacaan taasi oo inta badan ay kala kulmi jireen caqabado fara badan hadaba degmada beled xaawo waxay noqotay degmada inta badan ay noqotay degmo aanan garoon diyaarad lahayn balse gadoomiyaha degmada beled xaawo Shira Cabdi Keenan oo mar dhow loo magacaabay isla degmada ayaa wax uu yeeshay dardargelin waxa uu yeeshay saameyn waxa uu la soo baxay wixii gadoomiyaasha hore aysan la soo bixin oo karti ah hadaba degmada beled xaawo ee gobolka Gedo yaanan hadalka ku dheeraanaynin waxa laga aasaasay ama laga daafuray wajiga koowaad ee garoonka diyaaradda inta badan bulshadana waxa ay dhaxda u dhuuqsadeen in ay halkaasi ay ka mira dhaliyaan hadafkoodii iyo yoolkoodii oo ahaa in maamada foolinayso halkaasi diyaaradda laga saaro aabaha dhiikarka qabo oo degdeg ah in halkaasi diyaaradda laga saaro wiilkooda soo dhaawacmo diyaaradda halkaasi laga saaro hadaba gobolka Gedo sidee u aragtaa marka hore daawade adiga muuqaalka daawanaysid in degmada beled xaawo ee gobolka Gedo ay yeelato garoon diyaaradeed wixii fikirkaadii iyo faallada qaybta hoose ee commentiga inagu dhaaf hadaba ururka hooyinka iyo sidoo kale ururka dhalinyarta iyo sidoo kale ururka ganacsatada iyo sidoo kale ururka gaadiidleyda iyo sidoo kale aanan kala qaadeen bulshada degmada beled xaawo waxay dhaxda u dhuuqsadeen in ay garoon diyaaradeed ay yeeshaan imise maamul ayaa soo martay degmada oo dhagax idii iska dhigaan ay dhahaan igu sawir aheyd oo aheyd inta badan in ay dhahaan garoon diyaaradeed ay degmada beled xaawo yeelanaysaa hadaba waxaasi oo dhan maanta waa laga soo tagay garoonka diyaaradda ee degmada beled xaawo maalinkii sidaan loo dhagax dhigay bulshada way ku baraarugeen oo dhaxda idii u dhuuqsadeen shaqaalaha shaqeynayo biyahooda raashinkooda si aynu u dareemin in ay meeshaan aysan ku caajisin ay bulshada degmada beled xaawo ay la garab taagan yihiin midka geedka goonaya masaarta wato midka badeelka wato ciida sii qaadayo midka dhagaxaas keenayo bulsho maxaa lagu yaqaanaa in ay ka horumarkooda iyo aayahooda ay ka tishtaan hadaba
bulshada degmada beled xaawo waxaan leeyahay gudoomiye fiican ay haysatiin gudoomiye waxay haysatiin gudoomiyaasha hore caadaqaatiyaasha ahaayeen aysan soo marin oo wax walba oo maanta waxtar u leh uu rabo in uu magac iska reebo in uu iska reebo hebel waagu gudoomiyaha muxuu noqotay wax walbana waxa sheegay taariikhda imise gudoomiye ayaa soo martay degmada beled xaawo imise gudoomiye ayaa soo martay oo ay ahaayeen fadlan lacag ku shubo ay ahaayeen maqaar saar meesha iska joogo runta in qofka loo sheego aad iyo aad u fiican tahay bulshada degmada beled xaawo waxaan farayaa in ay maamulkooda ay garab istaagaan in raggaasi injineerada ay dhisay garoonka diyaaradda in ay garab istaagaan in aysan ku caajisin shaqada ka socota garoonka in ay had iyo habeenba u taagan yihiin in ay garoonkaasi sidii uu ku dhismi lahaa in ay bulshada ay noqoto kuwa har iyo habeen usoo joodo haddaba gudoomiyaha degmada beled xaawo shire cabdi keenaan ayaa waxa inta badan uu ka dhawaajiyay iyo sidoo kale ururka haweenkan waxay ka dhawaajiyeen in maalinkii garoonkaasi la furay oo la dhaxdhigay oo shaqada ay bilaabatay ilaa ay maanta oo la joogo iska soo daba dhacayaan fariimo niyad-jab ah haddaba qurbo joogta degmada beled xaawo aad iyo aad ay u mahadsan yihiin kaalinta ay kala qayb qaateen garoonkaas in uu sii socdo dhismihiisa haddaba sida uu gudoomiyaha sheegay ururka haweenka fariimo qaldan ayaa kasoo daba dhacayo inta badan ay ku niyad jibinayaan bulshada laakiin bulsho waa mid isku duuban bulsho waa mid wax qabsato bulsho waa mid aayahooda ay ka fakaraan haddaba dadka inta badan caadaqaatiyaasha oo aysan rabin in uu dhismo garoonka diyaaradda fadlan waxaa leeyahay deegaanadiina iyo dadkiina idaad dib u fiirisaan wax u qabta iska daaya beled xaawo way hormaraysaa wayna sii soconaysaa beled xaawo waxay noqonaysaa degmada ugu tayada wanaagsan degmooyinka gobolka Gedo markii aan saas ku leeyahay xagga dhaqaalaha degmada beled xaawo waa meesha ugu dhaqaalaha badan ee gobolka Gedo arwaka iyo degmo kale oo maanta dhaqaalaha badan ee gobolka Gedo bal soo sheega anigoo fan iyo waxba eegaheen waxba yaadin fan bay ka laakiin iga maaha anigoo fan eegaheen bal soo sheeg degmo kale oo gobolka Gedo ku taal baar dheer waa aragnay oo galbaharri waa aragnay oo luuq waa aragnay oo doolo waa aragnay oo burdo waa aragnay haye ama ceel waqti iska badaa ceel waa duntay magaalo waxaan noqotay Kenyatta iyo xagga iga dhig laakiin degmo beled xaawo maanta la tartami karto alla ilaa degmadaas beled xaawo la tartami karto dhaqaale ahaan bal ii sheega population marka la dhaxata degmada beled xaawo wax soo gaari kara malaha haddaba bulshada degmada beled xaawo gudoomiyaha waxa uu si toos ah oo la hadlay oo si dadban wax ugu sheegay ila daaw marka hore saaxiibayaal maanta waxa marqaati ka tihiin in hawsha eelaboorka ee hore aan u ballan qaaday ee maanta socoto mana istaagayso ilaahay idinkiisa ilaa aan ka dhamaystirin aniga iyo maamulkayga iyo saraakiisha amniga cidda isku daydo eelaboorka beled xaawo dhismihiisa inay siyaasadayso ama jinni ha ahaato ama insi ha ahaato ama dawlad ha ahaato ama qabiil ha ahaado waan la xisaabtamaynaa tallaabo sharciga waafaqsan baan ka qaadi doonaa cidna kama yeeli doono in dhismaha eelaboorka beled xaawo ay siyaasadayso hatta haddii naftanada aan ku weynayno haddaba daawada guntiga gunaanadkii anaga oo barnaamijka dhexda ugu sii jirno degmada beled xaawo bulshada ku nool waxaa fariin u soo marinaya halkan in bulshada degmada beled xaawo ku nool ay garab istaagaan maamulkooda ay garab istaagaan injineerada shaqada ku leh ee garoonka shaqada wado inta badan sidii in u dareemin caajis ay wax walba u baahan yihiin in ay garab u taageen ha muujiyaan in ay bulshada degmada beled xaawo in ay waxay qabsan karaan bulshada waxa tustaan garoonka degmada Cabudwaaq ay idin weydiiyay waxa lagu dhisay dawlad waxa ay keentay bisi bulshada degmada Cabudwaaq ay isgarab istaageen maanta waa aragnay garoonka degmada Cabudwaaq sida uu yahay sida ay maanta diyaarad u sugtayaan sida uu ku socdo horumarka degmada beled xaawo dadkeeda laga rabaa in ay kane garoonkaasi habeestaan ay waxay tusoo itaabsi ay la imaadaan haddaba haddii aad naga daawanayso daawada barteen YouTube-ka ee Manofficial fadlan muuqaalka like saar subscribe dhaho muuqaalka si uu ku noqdo muuqaal walba aan soo dhigno si aad u daawatid xagga Facebook aad naga daawanaysidna fadlan Facebook follow soo dhaho isla muuqaalkan like sida aragtid bulshada degmada beled xaawo garoonkaas ee ay ka iskood ay waxay ku dhisanayaan
sida aragtid iyo sida ay kula tahay qaybta hoose ee commentiga inoo dhaaf inta barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waa anigu Cabdiraxmaan ama anigu man official sidaas inaba kaliya